السلام عليكم أصحابته وإن استعملوا بدون كافي جوكتان ولكن عبد الملك مراد وإن استعملوا بدون كافي جوكتان صار له سعطان سلام الدراد سان فيليو أيا واحد لحري عبد الملك موسى عدون سما فلع عبد الملك موسى عدون أيا لحري موسى بيح إلا يكورس كسوف ولا إلا هذا ما نكستا وحو حريا وما أرتمنا وتعدي كل نقمياه سمرون شاق سمفلهاس عبد الملك موسى عدون ومارتي معناها si qaldan oo maartay bahdil oo mar walba kula dhaqmayo wiilkaas 5 sano ayuu maartay xabsi ku jiray inta uu xukunka joogay oo dhan wuu xirnaa saa la socotaan mar walba waxa loo xiraa dhaqaaqa ummadda Soomaaliyeed iyo maartay garab istaaga shacabka Soomaaliyeed masaakiinta oo garab istaagayo iyo sidoo kale qadiyadiisa Soomaalinimada iyo maartay macnaha islaamnimada ayaa mar walba loo daba joogaa oo loo xirayaa hooyadiis ayaa maanta madiyaha ka soo hadashay oo sheegtay wiilkeeda dadkii dhalinyaradii askarta ahaa ee maartay musaddiq u soo adeegsaday inay ahaayeen kuwa maartay macnaha ishaag diinta islaamka caayaya oo nabi maxamed caayaya oo ilaahay wax ka sheegaya inay ahaayeen oo afku u duuban yahay si xunna maartay macnaha ay u jirdileen wiilkeeda oo maartay macnaha meeshaasna ay ka wateen saa la socotaan qadiyadan badda uu ku iibsaday musaddiqi shacabka Soomaaliyeed oo dhan iyo Soomaaliland dadka ku nool ayaa maartay ka wada hadlay oo wada diiday oo maartay ka soo wada horjeestay laakiin se mar walba waxa target u ah عبد الملك موسى عدون سال سعطان مجا عبد الملك أيا أنت بدن وحو أنا اللي يراهدو أيا أنت بدن وحو مارتي معناها هي مجا أنت بدن ضدك مجا عصوته يهين ضد ودنيين ومارتي معناها إيش قد يدله ومارتي فهمتي أدلو وقع بصلا إن كستو أنا ودير هي إنه مارتي معناها إيش ويقبل يدين الإسلام ومارتي إنه وذا ويهي هذانا مجا عبد الملك ضدك أنت بدن الله بحيو أيا عدد ليجله أو ودنيين أو مارتي أيهين سادرتاد waxa way عبد الملك موسى عدون target ayuu yahay waxa way ninkaas haduusan iska qaban wuxuu aaminsan yahay in maarta kursigaas uu waayay ayuu aaminsan yahay uu ka faashaday hooyadiis ayaa cadeysay saala socotaan marka waxaan rabaa inaan waxa marka dayuusnimo ah oo doqonnimo ah qof walba marka annaga Soomaali aan nahay عبد الملك موسى عدون waxaan ahaa ninkii uu ololeyn jiray oo ilaa iyo maarta macna ishaq human right warqad u qori jiray meel walba ninka in la soo daayo maarta macna ishaq yaani ishaq ka dalban jiray aha shacabka Soomaaliyeed oo dhanna maarta meel walba ay maarta macna ishaq ay ka difaaci jireen laakiin se markii ay Soomaali annaga ay tahay qoys ahaan Soomaali markay tahay shalay dadka reer SSC waxaan ku garab taagnayn dulmiga iyo xasuuqii lagu hayay ayaan ku garab taagnayn maantana maana ku garab taagnayn beesha ay ka soo jeedaan iyo beelo Soomaaliyeed inaan kala jecelnahay waa inaad taa ogaataan beeshan عبد الملك موسى عدون uu ka dhashay ee wiilkooda lagu horbahdilayo ee miyaysan ahayn dad diyuusin waxa loo baahan yahay maadaama anaga meesha aan soo gali karin maadaama anaga Muuse Biixi aan ka soo furfuri karin inay istaagaan anagu haddaan nahay dad Soomaaliyeed waa garab taagana wiilkaas qadiyada Soomaaliya iyo Soomaali weyn iyo midnimada Soomaaliya wada jirkeeda ayaa loo xiray intii anaga tabarteena waa dadaalayna oo dhulkaas iyo baddaas sida uga badbaadinayn cadawga ummadda Soomaaliyeed ee maartay macna Ethiopia oo damac uu ka soo galay badaheena iyo sharafteena iyo karaabadeena iyo madax banaanideena inuu afduubto waa ka soo horjeednaa haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed meel walba aan joogno adin iyo awoodba waxaan diyaar u nahay inaan ku bixino inaan dalkeena difaacano laakiin arintani waa arin hoose waay arintani waa arin qabiil kamid ah qabiilada halkaas degan ee Soomaaliyeed lagu bahdilayo oo maartay dadkooda lagu ehelkooda fiiri marka ay ehelkaaga joogto oo aad u jeedid in mar walba lagu socdo waxa tahay dayus hadii aad isdifaacin beeshan wiilkaas uu ka dhashay ee garxajis ama maartay macna ishaq waxa looga baahan yahay in isdifaacaan shacabka Soomaaliyeed way garab istaagayaan mar waxay taagan tahay qabiilka sare ay taagan tahay marna waxay taagan tahay markii jifadaada la bahdilayo oo caruurtaada lagu hordilayo oo maartay macna guriyahaaga iyo dadkaaga lagu oohinayo maatadaada lagu horgumaadayo hadii aadan u istaagin adigu waxaad ogaataa cid adiga ku imaanaysa oo ku difaacaysa inaysan jirin Soomaalina waa istaqaana beesha عبد الملك موسى عدون uu ka dhashay hadaysan ahayn dulli hadaysan diyaar u ahayn adoonsi hadaysan diyaar u ahayn ishaq dulleysi hadaysan siyaasigooda ayaa sharaf lahayn oo maartay hortooda lagu maartay macna ishaq lagu bahdilaya intaasoo dhacdooyin ayaan u soo joognay beeshaas xasuuqa lagu hayo iyo bahdilka waxa maqli jiray waa loo arana maqli jiray war isdifaaca oo rag iska dhiga oo dad iska dhiga
oo marka dambe waxaa imaan doonta isheeg garxajisow in dumarkii gabdhihiinna in laydinku horkufsado hooyooyinkiin in laydinku horkufsado ayaa imaanaysa taasna waa dayuusnimo waa gaalnimo waa dadnimo xumo waa isheeg diinka bax waa dhaqan xumo markaad maanta adinka isheeg cabdimaalig muuse coldoon aad u istaagtaan shacabka soomaaliyeed oo dhan baa ina garab istaagaya qadiyadda cabdimaalig muuse coldoon lagu xiray waxay tahay inuu badda soomaaliya ee etoobiya la siiyey uu ka hadlay xaq ayuu u leeyahay ummadda soomaaliyeed dhan ayaa xaq u leh qof walboo soomaali ah oo dhiig soomaaliyeed ku jiro ayaa xaq u leh inuu baddiisa difaacdo cabdimaalig muuse coldoonna wuxuu difaacay oo uu ka soo horjeestay saxiixa muuse biixi uu maarata macnaha badda soomaaliya uu ku iibsaday ayuu ka hor yimid xaq buuna u leeyahay ummadda soomaaliyeed oo dhan baana ka wada hadashay dadka somalilan ka soo jeeda ama dhulka somalilan gobollada waqooyi ku nool oo dhan baa ka hor yimid shacabka soomaaliyeed oo dhan baa ka hor yimid kuwa soomaalida etoobiya ee maarata macnaha gumaysiga ku hoos nool ee maarata xabsiga isheeg aan internetka loo ogolayn ee maaratay aan korontada loo ogolayn oo biyaha laga jaranayo oo la ciqaabayo ayaa ka hadlay oo yidhi jeel hawada maarata isheeg u furan ayaan ku noolnahay ee kusoo dhawaada waxa weeye addoonsi baan ku jirnaaye dadka reer somaliland oo kale addoonsiga kusoo dhawaada way ka hadleen way ka soo horjeesteen badda soomaaliya in etoobiya qaadato way ka hor yimaadeen waa dadkii etoobiya ay maarata macnaha isheeg ay sheeganaysay waaye oo maarata macnaha etoobiya ay lahayd waa dad maarata macnaha etoobiyaana ayaa ka hor yimid in badda soomaaliya la qaato shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay maarata macnaha ka dhiidhiyeen cabdimaalig muuse coldoonna qaybtiisa ayuu ka qaatay xaq buna u leeyahay waa muwaadin soomaaliyeed waa nin wadani ah waa maarata isheeg samafale waa maarata macnaha isheeg waa wiil soomaaliyeed wuxuuna xaq u leeyahay inuu baddiisa difaacdo inuu qadiyadiisa difaacdo inuu soomaalinimadiisa difaacdo inuu diintiisa difaacdo ayuu xaq u leeyahay shalay ayaa waxaa loo xiray abaarso naag gaalo ah darteed iskool maarata macnaha isheeg ay meesha u timid oo maarata macnaha ay diinta islaamka ay rabtay inay maaratay iskoolkaas abaarso ay ku barto shacabka soomaaliyeed ayuu ka hadlay oo u xirnaa 3 sano haddana waa lagu tuuray waa bahdil beeshaas maarata macnaha isheeg habar yoonis lagu bahdilayo waay maanta waxaan qarinaynaa haba yaraatee ma jirto markaad habar yoonis oo kacdaan oo dhiig isku yeeshaan oo maatadiina iyo maarata isheeg dadkiina aad difaacataan shacabka soomaaliyeed sidii SSC ay u garab joogsadeen bay inii garab joogsanayaan ka kaca waa dulmi maanta muuse bixi cid walba qof wal yani isheeg cadow kasta wuu nooga xun yahay cadow kasta yahuudda ayaa ugu darane waa nooga xun yahay muuse bixi dhulkeenna ayuu doonaya inuu xabashi maarata macnaha isheeg u gacanta u geliyo waa inaad la dagaalantaan israa'iil waa ka daraya maanta muuse bixi annagu haddaan nahay shacabka soomaaliyeed waan garab istaagaynaa war wax walba aad u baahantihiin baan ku garab istaagaynaa war difaacda qadiyadiina maarata macnaha isheeg ehelnimadiina iyo maarata isheeg maarata macnaha wadajirkiina isheeg habar yooniso difaacda wiilkiina maalin kasta in laynu ka hor dilo laynu ka hor bahdilo oo sidii lama ooyaan looma aaraankii loo galo inkastoo aan ka xumahay dadkii saas macnaha ay ku baxday sheekadaas inay yahay inkastoo aan ka xumay laakiin markii qof eelkaaga maalin walba lagu tumanayo sharaftaada iyo karaamadaada lagu cayaarayo qabiil ha u fiirin warkan adiga kula dhashay beesha sare hadduu doono daarad ha kula ahaw hadduu doono hawiyaha kula ahaw hadduu adiga gaajocol ahow murursado ahow haddii ay kugu socdaan beesha adiga maarata macnaha isheeg beel ahaan ku bahdilayaan oo maarata macnaha isheeg ay si xun kula dhaqmaan oo ehelkaaga taargad uu yahay waa inaa isdifaacda haddaad diyuus ahayn haddii iinan diyuus ahayn ka kaca isdifaaca muuse biixi maanta iyo ciddiisaba waa cadowga ummadda soomaaliyeed israa'iil bay nooga daran yihin haddaan nahay shacabka soomaaliyeedna waxaa nagu ballan ah inaan cashar u dhigno ayaa nagu ballan ah waa inaad taa ogaataan waa cashar inaan u dhigno ayaa nagu ballana muuse biixi iyo cidda uu ka soo jeedaba iyo cid walba oo muuse biixi fikirkiisa raacsan iyo askari walba oo muuse biixi amar ka qaata waxaa nagu ballana inaan gacan bira ku qabanno baddeenna iyo dhulkeenna iyo wadajirkeenna iyo soomaalinimadeenna iyo diinteenna waa difaacanaynaa qof allaale iyo qofkii maaragtay macnaha ku taageersan muuse biixi in badda soomaaliya la qaato waxaa ogaataa inuu cadowga ummadda soomaaliyeed yahay oo cadowga yuhuudda nooga daran yahay waa inaad taa ogaataan waa in islaama dhammaan asxaabta meel walba adduunka ka joogtaan cali balatini waa ku salaamay saaxiib soo dhawow sii shargalaya barnaamijka waxaa maaragtay macnaha maanta aan ka hadlayaa ninka la yiraahdo isheeg muuse biixi beesha uu ka dhashay oo ah beel diyuusiin ah oo maaragtay macnaha isheeg mar walba shacabkooda iyo dadkooda iyo gabdhahooda lagu horkufsado ayaan rabaa inaan ka hadlo hadalkaas dhiirigelin bay iga tahay
waxaan la yaaban anagu intii tabarteen haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed oo aan ku taageeri karnay maxaan ku dhahay Cabdimaalig Muuse Codoon waa ku taageernay horena waa ugu taageernay haddana waa ku taageersanay laakiin anagu meeshaas ma imaan karno ayaga ayaa maartay macnaha isha beel hoose isla sii ah waxa loo baahan inay istifaacaan oo maatadooda ay difaacdaan ayaa loo baahan inay Cabdimaalig Muuse Codoon u istaagaan baa laga rabaa maanta haddii aad sharaf iyo karaamo iyo qiimeyn aad Soomaali ka rabtaan waa haddii aad sharaf iyo qiimeyn ismuujiya nacala wardkiin ku yaal war maalin walba in annaga Cabdimaalig Muuse Codoon oo hintiisa iyo oo hinta hooyadiis aan dhageysano sharaf darro iyo dullinimo inita laakiin adigu markaad qoryaha qaadataan oo Muuse Biixi aad maartay macnaha isha 10 u dhigtaan anu garabkiina istaagana maanta Soomaaliya dhan bacdow ku yaal wariya jaaniskaas ka faa'iideysta nacala aan dhalay war habar yoonisow garxajisow jaaniskaas ka faa'iideysta maanta ummadda Soomaaliyeed dhan baa garabkiina taagan ninkii badii Soomaaliya uu iibsaday waana taa ogaataan badii Soomaaliya ayuu maanta cadow u saxiix shacabka Soomaaliyeed dhan baa ka soo Soomaaliya weyn dhan baa ka soo jeeda waraa jaaniskaas ka faa'iideysta Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa maxaan ku sheeg maanta kursigana ka tuura waxa ogaataan in la ku sharfayo goboladaas in la ku sharfayo ummadda Soomaaliyeedna way ogtahay ishaag inaad tihiin dad wadaniyiin ah waxaad ogaataa xisbiga wadani ee maartay macnaha Soomaaliland shacabka Soomaaliyeed dhan baa taageersan waa inaad taa ogaataan waxaad noqonaysaan madaxda Soomaaliland ma noqonaysaan madaxda gobolada waqooyi ayaa noqonaysaan habar yoonisow laakiin maanta ismuujiya tan inta la inii geystay ayaa ku filan foolxumada iyo dhaqanxumada la kula dhaqmayo ma aha qof weligeed Ilaahay kama dhicin qabiil saa u bahdila weligeed Ilaahay kama dhicin beel saa loo bahdilo oo bahdil ku nool oo maalin wal maartay ishaq aqoonyahankooda iyo maartay ishaq abwaankooda iyo ishaq fanaankooda iyo cid walbo ayaga ka dhalatay la bahdilayo oo maartay iskaga nool iska qoslaya oo isaaq ba isla war isaaqnimada ka soo tag war bahdil ha qaadanin maanta waxaan rabaa inaan dhageysiiso kale Cabdimaalig Muuse Codoon hooyadiis oo iska baroratay ayaan rabaa waxay inaan daawsiyo si shargalay barnaamijka aad iyo aad ayaan waxaan waay labada indhood inta laga xado feeriya la dhacay ayaa madaxa bashaarka loo geliyay ku bari maayo madaxweyne sharaf leh oo aan naga naxay hada tahay war ku bari lahayn sadadii maqalaya islaamka ilaahay bariya in ninka inankayga ilaahay inuu soo furfuro isagoo ka yimid dhakhtarka dhibirka oo waa samafale dadka masaakiinta islaamka ah ee iyagu wuxuu cunaan aan eegayn ayuu samafalaa dhakhtarka dhibirku ka yimid uu soo eegay halkaas ka soo baxay ragga daba joogay tuugo wixii la siin jiray waxa yara waqtiga ayaa haranaas baaskoolada ka qabtay waa dileen gowdaasi ka saareen shidil bay u geystay baaskoolada ku qabtay ilaahay iyo nabiga waxaan inay caayin markaas ilaahay iyo nabiga waxaan may caayin dadkaas dad islaam ah waxa weeyaan ninka muwaadinka ah hadii wax loo sheeganayo waa loo yeelaa si aan loo warqad loo socdo maargadixiisayna kayo wadda ku sharci buu leeyahay dawlad bay sheeganaysaa in kastoo dawlad ma jirno dad baabisay adiga inaan loo yeelo ay waxa weeye muwaadinka in loo yeelo xaq buu leeyahay waxa weeyaan inankii afduuba argagixisada hareeraha ka geliya baaskoolado dabadeedna gowda ka saara dabadeedna meel gooniya geeya imkana guri gooniya ilaa iyo caawa u saddexdaa habeen meel allaaliyo meelu joogo lama hayo wax sheegay lama hayo meelu joogo lama hayo meel gooniya ku habar yoonisow dulli aan inibad dad ma tiidin habar yoonisow dad rag bay noqon waxa loo xiray ra'yigiisa rag maahan واسكع على علام واه هبر يونس باشا ليه نع الله واحد تيم كيال قشي هلا جوجي ودكينا oromadii xabashada dadkuna wuu lahaa ummaduna way lahayd gaalo iyo islaam wixii danaynay Soomaaliland ama Soomaaliya ba walaalaha tiisa maxaa ku dhigan shaabadu ku dhigan Cabdimaalig hadalkiisa waa maxay ninkum iyo faashadana kay ku faashada ma waxa maxaa loo xiray waa la qaaday indhaha laga dubay markii la qabtay ee la qabanayay rag dad baa arkayay labada indhood inta laga xado feeriya la dhacay ayaa madaxa bashaarka loo geliyay oo la saacidaa looga jigsay ilaa ay meeshii la geeyayna saasoo dhaxibna oo jeebaysna waxa weeyaan Muuse horta Soomaaliland baa lagu xisaabtamay dawladii caynka ahayd ku dhiibay Silaayo
maxamed axmed silaanyo sidaasad horta uga soo faraxalatay waad soo qalibtay lagulama xisaabtamin ciidan lama hayo rag lama hayo dalkii uunbaa taagnaa dalkii ayuunbaa taagnaa laakiin dowladda saas ugu afgambidi markaad soo afgambidaan lagula xisaabtamin oo lagu odhan maxay tahay dadkan raggan waxaa afgambiyey qarankan ka waran oo lagu aamusay oo anigu muujida ragga wax ku siihe oo aad kasoo faraxalatay bari oo dhan ayaad intaad bigtiri qabatay Itoobiya oo badii soo iibis inankaygu rabxo ummaddu ka hadlayso ayuunbu ka hadlayay caalamka meelaan laga hadlin oo la diidanay oo laga hadlay qofka ra'yigiisa ku hadlay ma jirto waa muwaadin ra'yi leh waa muwaadin waxna diidi kara inankaygu waxna qaadan kara ra'yigiisu hadlay waxa weeyaan qof walba ka dhimay raggiisa wadankiisa qof wadankiisa la dhiibayo nin aamusnaninba ma aha waa sababtay dadka loo dhiibay xabashi tahay xabashida waa tiin hana ku leeyahay inaga eriyeenayna in haysatay eegirka inaga gureysay ilaa halkii aad ugeyd la eriyay muuso ad xaygeeda taagnay dawladii hore ma ogoleen ingiriiski baa diiday xabashiga inuu wadanka yimaado ingiriiski ayaa diiday yidhi maxay tahay dalka rag baa leh Soomaaliya la yiraahdo idina maxay tahay lagu siin ma ilaa inta bad doonay maanta adiga cid kala tashan oo cid hay abuurtay arkin ay inta diyaarad ay hawtidii waa faasaxay wadanka marka qofka damiirka la aqliga leh wax isku falaydo waa ka hadlay wadankiisa caalamkana waa laga wada hadlay qof kastaana uu ka hadlay isaga waxaan ku dhagana kaaga hilaacay ku bari mayno soo daana ku oran mayno sababtoo ay tahay waa xanuunsanaysa Cabdi Maalig dulka marmaro waa xanuunsanaysa horta dadii maqalaya islaamka ilaahay ii bariya in ninka inankayga ilaahay inuu soo furfuro intaanu iga cun horta ilaahay bariyo faatixada ii mara dadka islaamka ay dhageysanayo inankayga intaanu iga cun ninkan wax kale kuma daba socdee horta ilaahay inuu iga soo furo faatixada ii mara oo ilaahay iga badbaadiyo ilaahay nabadgeliyo ta kale waxaan ku sheegayaa adduunyada marka imanka wax yar baa ku haray habeenaa ku haray mal adduunyada waxa sidoo taagnaanaysa wad baa leedahay 80 jir baa tahay cimrigaas ay taagantay aabihii baa leegtay waa ilmayaashaada la leeg ku bari maayo madaxweyne sharaf leh oo aan naga naxay hadda tahay waan ku bari lahayn waan ku iman lahayn albaabkaaga soo garaaci lahayn waa naxariis baan kugu ogeey oo ilmaha la laadsanayso aad sii day lahayd annaga marka hadda gobol baan joognaa waa gobol Soomaaliland hadda ku xidho gobolkiisa waxa noqon lahayd waji waa loogu tagi lahaa annaga ugu tagi carruurta ugu tagi lahayd tolkiiba ugu tagi lahaa waad laalaadinaysa waxaad ku laalaadinaysa oo geesi xaraawo adaa ka sheekaynaya waana uu sinaad u dhigayso inamadaada sidaan u joogi maayeen bari ka maalin marka tagto kuwa ugu basa loo laalaadinaya saacadta loola dhacaya taana niyada geli wallahi billahi oo tallahi hadii xarbi gaadho imika halkaas oo ka kala haadi mar walba ilaahay maalintu inankaas soo daayay saasuu sirdoon u daba dhiga malaaji baad mudiinkayga ilaahay baa hiba siiyay hiba ilaahay siiyo awood baa ilaahay siiyo aqli baa ilaahay siiyo fikir baa ilaahay siiyo waa nin wax kala garanayo ilaahay aqli iyo hiba siiyay taasad u quuleelaada kuwa la midka ah waa kuwa dad guriga ku xiraysanaya waa kuwa la cararaya waa kuwa maxay tahay la iyagi awlaad nuuro Soomaaliland saa la cararaya ee saa la boodboodaya marka waxaan ku sheegayaa horta ku bari maayo sababtaan ku bariyana waxay tahay in xariis baan kugu ogeey baa waxaan u diray nimanka waxaan u diray baaqa labaad nimanka habriyoonis mid kasta ha noqdaan waayo sababtay tahay bay habriyoonis way soo kaymid aniga iyagaan u diray baaqa waxa weeye ninka dhalaankaaga dhirbaaxa dhiigada u deeyay baan leeyahay habriyoonis ninka dhalaankaaga dhirbaaxa dhiigada u deeyay teedinka saas alla idinka qaadanaya maalin Cabdi Maalig isagana waa u shaqeynaysa hor carraysta dawaa nasiibkii maanta hadda ka ridaneysaan iyo hadda soo deeynaysan intaas rabana ku soo koobo waxa weeye beesha habriyoonis waa gun maanta laga bilaabo hadii aysan ka dhidhin ninkaas cadowga ku ummadda Soomaaliyeed ee badii maartay Soomaaliya raba inuu maartay xabashi gacanta u galiyo oo maanta ay James u tahay dadka ka faa'iideysan oo si SSC ay uga faa'iideysan Jameskaas waxa weeye dayuusin way anagu maalin walba hooyo habriyoonis oo ooyeysa ma daawan karno ma dhageysan karno waa inaad taa ogaataa marka si shargalay barnaamijka meel adduunka ka joogtaan